ciidamada ammaanka ayaa maanta howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho degmooyin kamid ah Muqdisho waxa ay ku soo qabteen hub aad u badan. Hubkan ayaa iskugu jiray biskoolado iyo qoryaha fudfudud waxaana lagu soo bandhigay xarunta xisbiga ee degmada Warta Nabadda. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo gaari goobta hubkani lagu soo bandhigay ayaa sheegay in ay ciidamada ammaanka ay yihiin geesiyaal ka hortagay in dhibaato loo shacabka Soomaaliyeed waxa uu intaas ku daray Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Khayre ciidamada howlgalka ay sameeyeen waa kuwa sidii loogu talagalay ay u sameeyeen xasilinta caasimadda Muqdisho ayayna ka shaqeeyeen maanta oo ay taariikhda 22 May 2017 sida aad u jeedaan Ra'iisul Wasaaraha waxa uu soo booqday xarunta ciidamada isku dhafan loo qorsheeyay inay ka howlgalaan xasilinta magaalada Muqdisho ciidankaas oo isugu jira ciidanka xoogga ciidanka booliiska iyo ciidanka nabad sugidda qorshahoodii ay bariyahan ku dardargelinayeen sugidda amniga magaalada Muqdisho saaka aroortii 6 aroornimo waxay ka howlgaleen degmada Wadajir xaafadda Xawtaako siiba meesha siliga Ameerikaanka halkaas ay ku soo qabteen 17 qoriga aad u jeedaan qoryaha iyo 3 bistooladood sidoo kale halkaas waxa lagu soo qabtay tuutayaasha militariga iyo ciidanka booliiska sidoo kale calaqa iyo xashiishadaha howlgalkaas wuxuu ahaa kii saaka ka dhacay degmada Wadajir xaafadda Xawtaako sidoo kale ciidankan isku dhafan ee ka howlgalaya xasilinta magaalada Muqdisho waxa ayagana ka howlgaleen degmada Shangaani waxaana soo qabteen meel hubka lagu gado laguna sameeyo oo runtii arin aad iyo aad loola yaabay ahna meelaha muxuu ahaa lagu bedeli jiray qoryaha iyo nambaradooda meelaha lagu sameyn jiray arimaha hubka oo fabrication badan laga sameyn jiray goobtaas iyada waxa laga soo qabtay 2 qori iyo 3 bistooladood iyo qalabkii ay ku sameynayeen arintan waxay ka dambaysaa qorshihii horay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ugu dhawaaqay in dalkan la xasilin doono qorshihii xasilinta Muqdishona dhaqangalkiisa ay qayb ka tahay qoryihii iyo bistooladihii aad soo qabateen iyo xashiishkii iyo calaqii iyo wixii aad soo qabateen intaas aad sameyseen xalayta kaliya dib ummadda Soomaaliyeed haysta qayb kamid ayaa ka qaadeen waa idinkaga mahad celinayaa waxaan idinku dhiiri gelinayaa inaad sii wadaan dadaalka laakiin haddii shacabku annaga uu naga shakiyo amniga ma sugi karno annagu inaan ammaano la nimaadno way dadka Soomaaliyeed oo aad u tageysaan waa in la ixtiraamaa laakiin sida kaliya aan horumar ku gaari karno waa inaan amni helnaa amnigana cidda ka mas'uulka waa taliyaashiina laakiin wiilashii gabdhaha halkan jooga oo soo labistay inay dalkooda difaacaan aniga madaxweyne waa idin amaanaynaa wax walba dawladda xaq u leedahay waa heli doontaan sida kaliya aan horumar ku gaari karno kulligan sharaf ciidan aan ku heli karno waa inaan wadankeena hagaajisanaa talaabada ugu horeyso dalka lagu hagaajin karo waxay tahay in amniga wax laga qabto haddaanu amni jirin dhaqaale la heli maayo haddaan amni jirin dib u dhis ma imaanayso haddaanu amni jirin dadka Soomaaliyeed oo baaga muddada shaqo looma abuuri karo haddii amni aanay jirin adduunyada lama dhaqmi karto haddii amni aanu jirin annagu isma aamini karno dadka Soomaaliyeed way soo dhibaatoodeen intay dhibaatoon karaan waa in dhibka laga saaraa ummadda Soomaaliyeed waa idin garab taagannahay waa idin dhinac taagannahay diyaar baan idin nahay inaad la shaqeyno oo ku mahadsantiin shaqada aad haysaan laakiin waxaan idin ka codsanayaa inaad soo afjartaan taariikhda mugdiga ee ummadda Soomaaliyeed Fartuun Cabdi Nuur Kalsan TV Muqdisho